السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركز السوداء وهذا أدي هذا وما تنتهين مقال كان وحن ربائنا ندي كل وذاقو حبنا كترسن كونغرس كمريكان كا أو يسوق جراء أقل كوكيل هذا يقل كسنة كا أي وحى أي تجين قبل كمينيسوتا سي أي ضد كرير مينيسوتا أي أودجيستان لباتوي أي كلا كل من هول جلدا إذا ماذا آيس أي كودين إلا يبشي ديسمبر دمات كي سنة كي هوري waxaa goobta ka hadlay xeeralyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison oo la dhageystay maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey maayarka magaalada St. Paul Colin Hare qaar ka mid ah dadkii muwaadiniinta Mareykanka ahaa oo ciidamada ICE ay qabteen iyo waliba Jaylani Hussein oo madax ka ah hay'adda CARE oo u dooda xuquuqda muslimiinta ee Mareykanka Ilhan Cumar ayaa sidoo kale xildhibaanada dhageysanayay dadkaasi cabashada ay ka tabanayeen ciidamada ICE iyo kuwa xuduudaha ilaaliya ee howlgallada ay ugu magac dareen in immigration ay dadka sharci la'aanta ay dadka dambiilayaasha ay ku qabanayaan ay ka wadaan magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis wax laga weydiinayay arrimahaas ayaan rabaa inaan idila socodsiiyo aan ku bilaabo waxaan ognahay magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis in howlgal ballaaran ay ka wadaan in ka badan 3,000 oo ciidamada ICE iyo sidoo kale kuwa xuduudaha ilaaliya ee CBP-da ay ka mid yihiin waxaana howlgalladaasi ay dawladdu ay sheegaysaa inay ku bartilmaameedsanayso dadka sharci la'aanta ah iyo kuwa dambiilayaasha ah oo ay sheegeen in gobolkaasi ay si aad ah u joogaan laakiin dhinaca kalena tacadiye ayaa ka socday loo geysanayay dadka muwaadiniinta Mareykanka taasi oo ay ku qasbanaadeen qof waliba baasaboorkiisa in haddii uu ID leeyahay ama baasaboorkii nafsad ahaantiisaba inuu gacanta ku wato oo haddii la istaajiyo oo ciidamada tusiyo dadka qaarkoodna iyadoo aanba laga ogolaanin inay ciidamada tusiyaan ayaa la qabanayay oo inta la xiro muddo saacadaha la hayo kadibna la soo daynayay ganacsiyadii inta badan waa ay xiran yihiin magaalooyinkaasi oo magaalooyin ganacsigoodu aad u sareeya ah Soomaaliduna ganacsi badan ay ku leedahay sida suuqa Carmel wadada Lake Street oo maqaayado fara badan ay ku yaalaan waxa ay labada maayar ee St. Paul iyo Minneapolis ay leeyihiin arrintan dhaqaalihii labadaasi magaalo hoos ayay u dhigtay dadkii maqaayadihii ma furan karaan haddii ay furtaan dad tagaya ma jiraan oo waxay leeyihiin hadda kiradii ayaanba iska bixi la'nahay haddaba xubna marka ka tirsan Congress-ka Mareykanka oo labada aqalka wakiilada iyo waliba aqalka sanadka ayaa waxay tageen Minnesota waxa hogaaminaysay xildhibaanad Pramila Jayapal oo ka tirsan guddi hoosaadka dhinaca immigration-ka waxaana ku wehliyay sidoo kale mid ka mid ah senatarada laga soo doorto gobolka Minnesota oo Amy Klobuchar waxa sidoo kale ku wehlisay xildhibaanad Ilhan Cumar oo degmada shanaad ee gobolka Minnesota laga soo doorto ujeedada ay xubnahan u tageen magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ayaa waxa ay tahay in ay dhageystaan bal dadka muwaadiniinta Mareykanka iyo dhibaatooyinka ciidamada ICE iyo kuwa xuduudaha ilaaliya ay u geysanayeen oo wali howlgalana ka wada magaalooyinka Minneapolis iyo waliba St. Paul xildhibaanad Pramila Jayapal oo guddigan hogaaminaysay labada xisbiya ayaa waxay sheegtay in ujeedada ay halkan u yimaadeen ay tahay in ay bal dadka dhageystaan cabashooyinkooda iyo dhibaatooyinka ay ka tabanayaan ciidamadan waxayna sheegtay xubnahan inay yihiin 28 xubnood oo dimuqraadi ah oo labada aqal ka kala tirsan isla markaana 18 gobol ka kala socda iyadoo Ilhan Cumar uga mahad celisay inay gacan ku siisay sidii dhageysigan ay u sameyn lahaayeen waatan xildhibaanad Pramila Jayapal oo markii dhageysiga ay dhameysteen kadib shir jaraa'id oo ay qabteen xubnahan ka hadlaysay tii uu dhageysiga socday ayaa xildhibaanad Ilhan Cumar waxa la siiyay 4 daqiiqo oo bal ay uga hadasho arrimahan ay howlgalladan ciidamada ICE ay ka wadaan gobolka Minnesota waxayna ku tilmaantay arrintan inaysan ahayn arrin dhinaca immigration-ka ee madaxweyne Trump uu wado argoosi siyaasadeed maadaama gobolkan uusan u codaynin waxaana lagu bartilmaameedsanaya ayay tiri dadka Soomaalida ah iyo dadka Latino-ga ah Ilhan Cumar waxay sidoo kale sheegtay madaxweynuhu shalay hanjabaadii uu ku hanjabay xeerka kacdoonka inuu adeegsanayo inay tahay inuu qalqal geliyo dadka ku nool magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis isla markaana qalalaaso uu abuuro si uu ugu marmarsiyoodo in xeerkaasi kacdoonka
oo 1807 la isticmaalay ama la sameeyey in uu madaxweynuhu ku marmarsiyoodo waxayna sheegtay arrintan inaysan ahayn arrin immigration wax looga qabanayo ee ay tahay argoosi siyaasadeed oo madaxweynuhu uu samaynayo xildhibaanad Ilhaan Cumar oo arrimahaasi ka hadlaysayna waxay tiri sidoo kalena maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey oo isaguna dhageysiga ka hadlay ayaa waxa uu sheegay dadka reer Minneapolis in ay nabad dareemi doonaan marka ciidanka ICE ay isaga baxaan magaalada Minneapolis waxana uu sheegay in arrintan ay tahay mid dhibaato ku sii kordhinayso magaalada oo uu sheegay in hadda dhaqdhaqaaqeeda socodka ganacsiga iyo waliba dadweynaha oo hoos u dhac weyn laga dareemayo sidoo kale maayarka magaalada St Paul oo iyada dhawaan la doortay isla markaana iyada nafsad ahaanteedu asal ahaan soo galooti ah ayaa waxa ay sheegtay in iyada nafsad ahaanteeda la taliyaasheeda ay u sheegeen in baasaboorkeeda ay qaadato maadaama ay ka mid tahay dadka ay bartilmaameedsanayaan ciidanka ICE waxayna sidoo kale ka hadashay in 60% dhaqaalaha magaalada St Paul hoos u dhac ku yimid arrimahan immigrationka darteed waxaa jirtay wiil Soomaali ah oo horaantii bishii December ay ciidanka ICE ay qabteen oo muwaadin Mareykan oo 20 jir ah Mubashir Khaliif Xuseen ayaa la yiraahdaa dadka maanta ay dhageysteen guddigan ka socday Congress-ka ayuu ka mid ahaa waxana uu sheegay in maalintii la qabanayay uu shaqo ku jiro break uu qaatay isla markaana xilligaasi uu arkay ciidamada ICE ayna qabteen waxana uu sheegay inuu dhowr jeer ku celceliyay inuu yahay muwaadin Mareykan waxaan isku dayay ayuu yiri inaan tusiyo ID-gayga laakiin waxay yiraahdeen wax macnaha nooma sameynayso arrintaasi waa inay wadeen ayuu yiri saacada kadibna waa ay soo daayeen markii muddo saacadaha ay hayeen isagoo arrimahaasi guddiga ka hor sheegaya ayaa waxa uu yiri sidoo kale Jaylani Hussein oo isaguna madax ka ah hay'adda CARE oo u dooda xuquuqda muslimiinta ee Mareykanka isaguna ah nin Soomaali ah ayaa waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyaba ay ururkiisu wadeen inay diiwaan geliyaan dadka muwaadiniinta Mareykanka oo dhibaatooyinka ciidamada ICE ay u geysteen ama ay qabteen oo saacado ay haysteen amaba sidoo kalena ID-gooda ay weydiiyeen waxana uu sheegay arrintan inay ahayd mid lagu bartilmaameedsanayay community-ga Soomaalida ah ee ku nool magaalooyinka Minneapolis iyo St Paul waxana uu xaqiijiyay in arrintan aysan ahayn arrin immigration wax looga qabanayay oo howlgallada ay ahaayeen howlgallo dadka Latino-ga iyo dadka Soomaalida ah lagu bartilmaameedsanayay Jaylani Hussein oo isaguna guddiga ka hor hadlayay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo